asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda. habeen walba xiliyadan oo kale ayaan idiin soo gudbinaa alaabo waxaynu kusoo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda gudaha dalka iyo dibaddaba. qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka aynu ku qaadaa dhigi doonno ayaa waxaa ka mid ah farmaajo oo awood militari ugu diiday xildhibaanadii lagu soo doortay ceel waaq inay gudaha u galaan xarunta baarlamaanka. rooble oo ku cadaadinaya gudoomiye Dhabancad inuu aqbalo natiijadii xildhibaanada ay ku soo baxeen islamarkaana uu guto waajibkiisa la xiriira in uu dhaariyo xildhibaanadaasi. shaki badan oo laga muujinayo in xiriir uu ka dhaxeeyo weeraradii ka kala dhacay gaalkacyo iyo liido ee lala eegtay dad ka soo jeeda Puntland. doorashooyinkii ceel waaq oo la soo gabagabeeyey iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo ka degay halkaasi. dagaal culusna waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, khasaare ayaana ka dhashay. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir, subscribe dheh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto ha naga ilaabin. horaan haddii aad nala joogto waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga, like dheh muuqaalka, gruubyada WhatsApp iyo Facebook inaad kusii share garayso ayaan kaa rajeynaynaa. waa habeenimo ay sii baxayso Sabti Axad ayaa soo galaysa, taariikhduna waxay ku beegan tahay 23 bisha Abriil sanadka 2022. waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena. aynu ka hormarnay madaxweyne Farmaajo ayaa awood militari waxa uu adeegsaday in uu ka hor istaago inay gudaha u galaan xarunta baarlamaanka xildhibaanadii lagu soo doortay ceel waaq oo uusan isagu ka qunneen. laba doorasho isgarab socda ayaa ka socota Jubbaland. ceel waaq koox taageersan Axmed Madoobe ayaa ku qabatay doorasho maanta la soo gabagabeeyey. tagista shahaado bixinta codaynta iyo ku dhawaaqista natiijada ma aysan qaadan wax saacado ka badan, taasi oo sii xoojisay fadeexooyinka doorashooyinka Soomaaliya dul hoganaya. Garbahaari ayaa iyadana waxaa ka bilaabanaysa doorashada 16 kursi oo ay fulinayaan xubno taabacsan Farmaajo. labadaba waxaa jooga xubno ka tirsan guddiga doorashada heer federaal ee FID iyo midka xalinta khilaafaadka, balse ceel waaq waxaa dheer u ah xubnaha guddiga doorashada heer maamul goboleed ee SID. in ceel waaq la aado oo doorasho lagu qabto waxay ka dhigan tahay in laga baxay ku dhaqankii heshiiskii 17 Sebteembar. waana markii koowaad oo hogaamiye goboleed uu si toos ah u jabiyo heshiiskii ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaankii 10aad ee dalka. Axmed Madoobe dood xoogan uma noqon doonto, ma tegi karo Garbahaari xilli Cali Guudlaabe uu doorasho ku qabtay magaalada Beledweyne oo uu dhiig daadanayo, geeriduna ay 100 dhaaftay intii magaaladaas uu joogay. waxaana dadka qaar ay u arkaan Axmed Madoobe inay tahay in wada hadal ah uu furo. qaar ayaa ku doodaya muhiimba inaysan ahayn in la tago Garbahaari oo ay tahay in doorashada sideeda ay ku dhacdo. kooxda Garbahaari aaday iyaguna waxay noqdeen qoladii koowaad ee ku dhaqaaqda laba doorasho oo isgarab socda, taasi oo beesha caalamka horey digniin ay uga soo saareen. guddiga doorashada ee FID waxaa ceeb ugu filan in 16 kursi oo loogu talagalay in hal magaalo lagu qabto in laba magaalo doorashadoodu ay ku wada dhacaan islamarkaana ay soo baxaan 16 iyo 16. laakiin fadeexadii ugu weyneed waxay timid kadib markii xubnaha lagu soo doortay ceel waaq ay isku dayeen in gudaha ay u galaan baarlamaanka si loo dhaariyo. hase ahaatee ciidamo militari ah oo lagu jaray agagaarka xarunta baarlamaanka ayaa ka diiday, kuwaasi oo uu soo abaabulay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. tani waxa ay ka dhigan tahay in weli Rooble ay u taalo shaqo xoogan oo ku saabsan sidii uu kala furfuri lahaa ciidamadaas iyo awoodda militari ee weli uu isbidayo madaxweyne Farmaajo. dhinaca kale, Rooble ayaa ku cadaadinaya gudoomiye Dhabancad oo ah gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee golaha shacabka inuu aqbalo natiijadii ka soo baxday ceel waaq islamarkaana uu dhaariyo xildhibaanada halkaas lagu soo doortay. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee golaha shacabka mudane Cabdisalaan Xaaji Axmed Dhabancad. qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadleen doorashada guddoonka golaha shacabka oo heer gobogaba ah maraysa. warar lagu kala soonaan karo ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha uu gudoomiye Dhabancad ku cadaadinayo inuu aqbalo natiijada kuraasta lagu qabtay ceel waaq, kuwaasi oo qaarkood maanta loo diiday in gudaha ay u galaan kulankii baarlamaanka.
kulanka labada mas-uul ayaa ku soo aadaya xilli maanta ay xildhibaanada baarlamaanka khudbado u jeediyeen musharaxiinta u taagan xilalka guddoonka iyo ku-xigeenadiisa ee baarlamaanka. dhanka kale, ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe. rooble iyo guudlaabe ayaa ka wada hadlay dhammaystirka kuraasta golaha shacabka ee weli ku harsan hirshabelle iyo qodobo kale. warar soo baxaya ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu isku dayi doono inuu ka shaqeeyo waddo kasta oo uu ku xaqiijin karo inay guulaystaan xildhibaanadii isaga iyo axmed madoobe ay soo saareen. dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ayaa faahfaahino kala duwan laga helaya. warar dheeraada ayaa waxaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal saakay ka dhacay deegaanka jasiira ee duleedka muqdisho, kaasi oo u dhexeeyey ciidan ka tirsan dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaad macwiisley ah. wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu sababay muran ka dhashay qaad laga soo dejiyey xeebta, waxaana isku dagaalay labada dhinac sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah. dagaalka ayaa si gaar ah waxa uu dhex maray ciidamo isugu jira militari iyo booliis doonayay in jaadka ay soo gudbiyaan. rag kale oo macwiisley ah oo iyaguna halkaas ku sugnaa ayaa isfahmwa uu soo kala dhexgalay. wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in khasaaraha ka dhashay uu yahay iskahorimaadkan mid aan la xadidi karin, walow si rasmi aan loo xaqiijin karin, waxaana weli kacsan xaaladda deegaanka oo waxaa laga cabsi qabaa in dagaallo kale ay ka dhacaan. dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxaa saameyn ku yeeshay dagaalka ka qarxay halkaasi, kaasi oo ilaa shalay xiisadiisu ay ka taagneed ceel huur ilaa iyo waddada ka timaada jasiira, iyadoo aysan jirin cid iminka ku baraarugsan oo soo kala dhex gashay dhinacyadan, islamarkaana muujin karta in waanwaan arrintan lagu dhammeeyo. weerarkii xalay ka dhacay liido iyo kii ka dhacay maalmo ka hor magaalada gaalkacyo ayaa dad badan ay isla xiriirinayaan. marka la eego dad badan oo arrimaha siyaasadda darsa ayaa waxa ay sheegayaan in marka loo eego sida ay u dhaceen weerarkii lagu qaaday wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya cabdisaciid iyo weerarkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho, gaar ahaan hotel ku yaala liido oo ay ku shirayeen siyaasiyiin ka soo jeeda dhulbahante beesha soomaaliyeed ee la wada yaqaano, iyo weliba saraakiil ciidan oo halkaas ku sugnaa iyo xildhibaano, iyadoona xogtu ay tilmaamayso in taliyaha booliiska uu ka mid ahaa dadkii halkaas ku sugnaa balse markii dambe lasoo badbaadiyey. wararkii ugu dambeeyey aan helayno waxay tilmaamayaan in shaki badan laga abuuray in mas-uuliyiin ka tirsan puntland ay weeraradan ka dambeyn karaan. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani iyo madaxweynihii ka horreeyey soona noqday ra-iisul wasaaraha dalka cabdiweli maxamed cali gaas ayaa labadooduba arrintan si kulul u cambaareeyey. ra-iisul wasaaraha iyo xubno kale oo dowladda ka tirsan ayaa iyaguna cambaarayntaas kula biiray, laakiin lama soo bandhigin xogta ku saabsan sida ay ku suura gashay meesha la weeraray oo ah meel amnigeeda aada ugu adag yahay in xubno al-shabaab ka tirsan oo hubeysan ay gudaha u galaan. al-shabaabna waxa ay la wareegeen matabaan oo ay isku haystaan inta badan maamulada hirshabelle iyo galmudug. koox ka tirsan al-shabaab ayaa waxay la wareegeen degmada matabaan oo ka tirsan gobolka hiiraan balse hoos tagta maamulka galmudug. al-shabaab ayaa si nabadgelyo ah kula wareegay matabaan markii ay isaga baxeen ciidamadii booliiska ka tirsanaa ee galmudug taabacsanaa. ciidamada ayaa la sheegay in magaalada ay firaaqayeen markii ay heleen akhbaar ku saabsan in al-shabaab halkaasi ay kusoo wajahan yihiin. al-shabaab ayaa gudaha u gashay xarunta degmada iyo saldhigga halkaas oo la sheegay inay burburin ka wadaan sida ay dhowaan ku sameeyeen markii ay qabsadeen degmada matabaan oo ka tirsan gobolka hiiraan. waxaa dhowr jeer isku badbedelay ciidamada galmudug, kuwa ahlu sunna iyo al-shabaab, iyadoona al-shabaab iminka ay xoojiyeen culayska ay ku hayaan magaalada. madaxda maamulka galmudug iyo saraakiisha ciidamada qaybta 27aad ayaan weli ka hadlin la wareegitaanka ururka al-shabaab ay la wareegeen matabaan oo ah magaalo istiraatiiji ah. tani markii ciidamada ahlu sunna ay isaga baxeen matabaan, waxaa al-shabaab dhowr jeer ay gudaha u galeen magaalada iyagoon la kulmin dagaal sidaasi usii xoogan, islamarkaana dad badan ayaa ku talinaya in magaaladaas ay ku habboonaan lahayd in ahlu sunna wal jameeca maamulkeeda loo daayo, laakiin waa laga hor yimid oo wuxuu xaalka u muuqdaa inuu yahay
mid muujinaya in ahlu sunna wal jamaaca ay magaalada u baahan tahay si ay uga difaacaan khatarta al-shabaab. guud ahaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka wararka Soomaalida iyo caalamka oo aad ka daawanayseen Haga Media. muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. Ramadaan mubaarak.